degmada Buurtinle waxaa hoos yimaada in ka badan 41 deegaan kuwaasi oo u badan dad xoolo dhaqata sidoo kale degmada waxaa ku dhaqan reer guuraa waxaana ay iib keenaan xoolaha nool caanaha iyo haraga dhaqaalaha ugu badan ee degmada Buurtinle waa mid ku tiirsan xoolaha maadaama ay xooluhu yihiin nolosha ummadda Soomaaliyeed waxaanu booqanay xafiiska wasaaradda xanaanada xoolaha Puntland ay ku leedahay degmada Buurtinle oo shaqooyin xoog leh ka wada deegaamada hoos yimaada degmada Buurtinle madaxa xafiiska wasaaradda xanaanada xoolaha degmada Cabdullaahi Jaamac Ibraahin ayaanu wax ka weydiinay shaqooyinka ay wadaan waxa uu baaqiyo degniino badan u diray xoolo dhaqatada Puntland marka ugu horeysa xafiiska degmada Buurtinle ee wasaaradda xanaanada xoolaha wuxuu ka wakiil yahay wasaaradda isku xirkii caafimaadka xoolaha ee degmada Buurtinle iyo wasaaradda sidii ay isku xirmi lahayd wuxuuna qabtaa hawlo tiro badan oo wasaaraddu ay leedahay oo ay yihiin mataqaanaa xagga caafimaadka xoolaha xagga mataqaanaa warbixinada ama sida xaaladaha ay cudurrada iyo waxa jira iyo asbaab iyo sifooyin badan oo xoolaha ku imaan kara oo ay warbixin ka dhiibaan bilbil iyo asbuuc iyo haddii emergency ama outbreak uu dhacana si degdeg ah ay wasaaraddu u gudbiyaan wixii markaas jira ay qabtaan haddana xilligan aynu ku jirno waxay hayaan wasaaradda xafiiskeedu hawlihii mataqaanaa caafimaad ayagoo ka shaqeeyay meelo badan oo degmada ka mid ah oo aan la tirakoobi karin xoolo badan oo ilaa iyo cadadooda 50 iyo zaid kun ah hadeer soo daaweeyay oo ka soo shaqeeyay hawlihiina ilaa iyo hadda way ku guda jiraan oo sidii bay u wadaan ayagoo u adeegaya ummadda iyo xoolaha ee degmada Buurtinle sinay deegaanada hoos yimaada baalkii dawladda Jalam soonaheeda sida baalkii Xamarkoor meesha la yiraahdo Gowracane Baxaar baalkii meesha Qoorwiile Baledacar iyo ilaa iyo mataqaanaa Madiix ilaa iyo inta degmo ay xukunto meeshaas tuulada la yiraahdo Jalam hoos timaada tuulahan hoos timaada oo deegaanada ku dhow baanu ka shaqeynay haddana shaqadii waxaanu wadnaa oo aanu meelo badan hadda Magacley iyo Godobyar iyo Baledacar iyo ilaa iyo Meegaagiyo iyo Caris iyo meelahaas iyo meeshii aanu gaari karno hawsheedu ay ku saleysan tahay xoolaha inaan wax ka qabanno baanu diyaar u nahay una soconnaa una shaqeynayna waxaa jira deegaanka degmada Buurtinle ay tuulooyinka ama deegaamada hoos yimaada waa tiro badan yihiin ilaa iyo 41 tuulo baa hoos timaada xoolaha joogaana waa badan yihiin ayagoo isku jira xoolaha Soomaalidu ay dhaqato geel iyo ariga saa darteed aniga cudurrada dalka ka jira waa cudur mataqaanaa la soo wada ogyahay oo caadi ah laakiin dhibaatada taala waxay tahay oo socota oo xoolaha baabi'inaysa ama waxyeelaysa dadkii reer miyiga ah oo aan daawooyinkii kala aqoon ama dhibaato ay ka timaado daawo aan quality lahayn xoolihii lagu diro ama mid kale oo loo isticmaalo ooyinka aan quality lahayn oo matana meelaha yaal dadka meel kasto ay joogaan ama wacyigelinta aanu ku dhaxmarayno ha noqoto ama mid wasaaraddu ay dirayso ha noqoto ama anagoo ummadii iyo matana cilmigii iyo aqoontii xoolaha u hayn waxaanu wadigeynaa ama mar walba u sheegaynaa in daawooyinkaas aysan quality lahayn xoolahana laga daayo qaarkood inta ka qabanaan ku tuurnaa ka jibina daawooyin quality leh baa wasaaraddu keenta xafiisye ay fudhay farmashiyaal ku yaala Puntland oo dhan oo daawo quality ay yaaleen xoolihiina wax ugu yaala laakiin kuwa ganacsatadu ay keenayso ama meelaha kale laga keenayo ama koonfur hay inooga yimaadeen ama waqooyi hay inooga yimaadeen xoolihiina aan quality ku lahayn in mataqaanaa laga hortago oo dadkiina ay gartaan waxaan ay xoolaha ku durahayaan ama ay dadka aqoonta u leh oo cilmiga u leh xoolihii ama yaqaan inay kala tashadaan oo yiraahdaan waxa jira saasaan arkay sifnahaasaan arkay daawadeen noocee baan xoolaha u qaataa ama kaalayo xoolihii mataqaanaa u tago iga soo shaqeeyo ila arago xoolo wixii ay jiraan markaas wuxuu noqonaysaa in xoolihiina xoolo caafimaad qaba ay noqdaan dadkiina mataqaanaa ay daawo quality ay helaan wasaaradda waxaan u gudbinaa in degmadu ay badan tahay leedahay intaasoo deegaan oo tiro badan iyo xoolo badan wasaaradda u gudbinaa anagoo degmo ahaan waxaan u baahannahay intaas ma ka fikirno anaga degmada joogna waxaan u baahannahay iskastara tiimam ama hawlqabad in wasaaraddu mataqaanaa ay noo kacdo wasaaraduna wixii karaankeeda markaas ayana waa nala qabataa
ama deegaanada Puntland oo dhan jooga isla mid xoolo dhaqato waa xoolo dhaqato xoolaheenu waa xoolo guura waa xoolo aan mataqaanaa aan faamam iyo meelo kamid aan ku jirin waa xoolo mataqaanaa roobka ku xiran oo roobka u guura marka waxaan leeyahay nin kasta oo xoolo dhaqata oo meel kasta uu joogo ama deegaanu hagayso ama sidiisa ha u guuro ama deegaan ha ahaade marka uu wax arko ama uu wax garan waayo dadka xoolaha cilmigooda yaqaan ama ku shaqeeya ama meel kasta ay joogaan inuu la soo xiriiro oo uu kala tashado daawada iyo wuxuu siinayo wuxuu qaadanayo dowladda Puntland wasaaradda xanaanada xoolaha ayaa dadaal weyn gelisay la socodka iyo daweynta guud ahaanba xoolaha gobolada Puntland waxaana degmooyinka ku sugan shaqaale khibrad u leh taasi oo looga gol leeyahay in laga hortago xanuunada ku dhaca xoolaha wasaaraddu waxa in badan xoolo dhaqatada uga digaysaa in aan la isticmaalin dawo aan soo marin ama sida loo isticmaalayo aadan khibrad u lahayn Guuleed Jaamac Saajid raadiyaha telefishinka dowladda Puntland magaalada Buurtinle